بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arin maalmahan soo noqonaysa oo ugu dambeysay shalay laga hadlay 5 September 2022 wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay qabatay shirweyne qaran oo noo daahfuray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre oo looga hadlayay qaraarka tirsigiisu yahay 1325 oo haweenka nabadda iyo amniga nasiib wanaag shirka waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Madam Saadiya Yaasiin Xaaji Samantar oo ah hoggaanka ugu sareeya haweenka Soomaaliyeed oo ah fursadda ay dumarka Soomaaliyeed maanta haystaan iyo dad kale qaban qaabadeedana waxa lahaa qaybaha kala duwan ee dumarka Soomaaliyeed laga bilaabo maalintaas waxa soo taraayo warar soo noqonay oo ka imaanaya kuwa magac culimo sheegta oo Yurub iyo Mareykan qolal ku xiran oo siyaasadaha ka hadla iyo rabitaankooda oo aan ku salaysanayn diin kuna dhaleecaynaya madaxda qaranka iyo hoggaanka ugu sareeya haweenka Soomaaliya waxa soo weheliyay shalay oo jimca ahaydna inuu ka hadlo Sheekh Umal diinta islaamka waa nasteex wararka ay sheegayaan maalmahan annaga ugama qaadanayno inay nasteexadii diinta ay wax ku sheegayaan waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummadda Soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka Soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dawladda iyo hay'adaha dawladda ka shaqeeya la cadad wala xisaab dunida muslimka marwooyinka ugu sareeya ayaana saraawiish xiran surwaalka shalay laga hadlay kama duwana saraawiisha shirka 5 September la qabtay wuxuu ahaa haweenka nabadda iyo amniga mana ahayn shir looga hadlayo xadgudubka jinsiga taasoo lagu dhaleecaynayo hoggaanka ugu sareeya haweenka Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka koowaad hogaamiyaha siyaasadda beeshayda aqlabiyadda baarlamaanka Madam Saadiya Yaasiin Xaaji Samantar waxaan ka qaadan lahayn haday nasteexa tahay laakiin uma aragna nasteex magaca culimada Soomaaliyeed ayagoo sheeganaya kama hadlin ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii guryahooda iyo ayagaba la isku gubay caruur Soomaaliyeed oo jawaano ku guran ayagoo la gubay inay arkaayeenna jimcayaasha kama aysan hadlin qololkana ugama aysan hadlin ay ka qayliyaan habeenkii ceelasha dad iyo dunya ay ka cabaan oo la gubo kama hadlaan gabdhaha Soomaaliyeed 3 jirka ah iyo 5 jirka ay gudoomiyaha sheegtay iyo kuwa 11 jirka ah oo tacdiyada loo geystay kuwa la jarjaray oo digsiyo lagu daboolay kuwa la dabaqyo laga tuuray iyo kuwa inta la soo tacadi lagu sameeyay haddana waalidkood ayagoo meydkoodii la duugay ay dib u arkeen oo jarjaran intaba kama aysan hadlin culimadeen sida aan sheegay oo ku celinayo way badan yihiin dumarka hay'adaha dawladda ku jira saraawiishooda wayna badan yihiin kuwa caalamka islaamka madaxda ka ah
ومدحوينياشو قبان وسراويش وات كوا مدحدا oo hogaanka dalka ugu sareeyana maanta aan haysan diinta islaamka nasteexada marka laga hadlaayana qaraabada iyo ehelka hoosa laga bilaabo kuwa xad ka gudbay oo ehel iyo qaraabo ay ahaayeen jira oo diintana xaga u dhaaf waligood nasteexo hoose iyo mid kor ayagoo siinayana lama arkin ma waxay yiraahdeen madam Saadiya gudoomiyahay iyo Khadiija Maxamed Diiri 0.5 waayo culummo nasteexaysa dadkoodu ma laha diintu say 4.5 mal horta ka bilaaba kuwiin xadki gooyay annagana nasteexan noo muujiyo oo ubadkeena la gubay iyo hooyooyinkeena iyo ceelashana la ka duugay ee dad iyo dunya shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta u taagan yahay ka hadla hadaa diin ka hadlaysa kacdoonka shacabka argagixisada ka hadla hadaydan idinku kamid ahayn kuwa baa dhawaaq idinka rabo kuwa baa la rabaa inaad ku garab istaagtaan dagaalada dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku jiraan yaareed inaad fahmi kartaan wax badan oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay fahmayso idinkaan idin nasteexaynaya aw xirsiga qolalka ka qayliyo iyo shiiqa masaajidada ka hadlayo nasteexadaad rabtaan idinkaan nasteexa u baahan waan ku celinaya haddii cidi loo nasteexaynaya idinkaa u baahan nasteex mararka qaarkood waxaan isiri Sheekh Umar wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiri anoo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ah isagoo lacag soo qaaday dawladdan u wada dhahay buu halkan yimid muxaadaraan ku qabanaya buu yiri wasiirka dhalinyarada iyo sportigan ah maalintuu yiri muxaadaraan ka qabanaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa ooynays aaski almaas elmanu aha ma u garanaynin taasaan u baajiyay oo dawladana aan dib ugu celiyay inaan maalinta baroorta dhalinyarada Soomaaliyeed aan dacsigaaga lagu soo beegin ilaa aan meydka ka aasano way duubantahay meel kastana way ku jirtaa kuma bedelan kartid Khadiija surwaal wadata surwaalku waa baday diintan waxba uma dhimo labo aan kugu nasteexaynaa habar baatir awo iyo maalin salaad kasto aan dukado ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad habarnimadu waa darajo Allah subhanahu wa ta'ala ayaana ugu mahadiyaa oo habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan abuulan baan ku sii socdaa habarnimadu faan iyo amaan bay ii tahay aan ku nasteexay dib ugu noqo waxa ummadda Soomaaliyeed ka sugay cilmiga ilaahay ku baray waxaan filayaa inuu la yanfac yahay waxba kuma tarin hadduu wax ku taray nasteexada meesha jirtaad aadi lahayd wabillahi tawfiiq